dhagaxdhigan jidkani oo noqon doona mid isku xidha deegaanka Tulli iyo sidoo kale magaalo Qallooc oo hoos timaada gobolka Awdal ayaa waxa uu dhererkeedu dhan yahay ku dhawaad 12 kiiloomitir. Dhismaha wadadani ayaa waxay fududeyn doontaa deegaankaasi magaalo Qallooc oo ah deegaan wax soo saar isla markaasina ay ku yaalaan beero kala duwan ay dalagyada kala duwan ee beerahaasi ka soo go'a ay si fudud ay u soo gaari doonaan deegaanada kala duwan ee Somaliland. waxaana munaasabada dhagaxdhiga wadadaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland oo isagu markaasi wakiil ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka, barsaab ku-xigeenka gobolka Awdal, odayaasha deegaankaasi oo iyagu iska xil saaray sidii wadadaasi loo dhisi lahaa isla markaasina sameeyay sarfiinka ay wadadaasi ay mari doonto. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Nuur Faahiye oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa ururka Ceeleeye oo iyagu iska xil saaray sidii wadadaasi ay u hirgeli lahayd ayaa ka waramay. أما أكتئب إن تجاه كان وياهي ماشي وقبل ربط نيد الصومال لامبا هل كان قاعدين كسير كمرية أو هل كان ديردين وحياة حسنة أم كنت صو بنكي أردم بكاه الرية وأدول كي وبانا إن مارتي لا لما الكشطو وطلع عنه حباء لقى بقى بنكره مركا هل كان دور كذا نوع حاجة في المعدار أو meel taariikhi ah oo dhagaxaasi dad baabuurta saaray waxana weeyaan ninkii la oran jiray Horas ninkii la oran jiray masaaridu ay 700 oo sanadood magaciisa ka hor marka adduunyada xukumi jiray magaciisa way ku baxday dhulkeena in la yiraahdo dhulkii ilaahiyada ninka dhulka ka boqorka ahaa sawirkiisii way taaladiisii weeyaan waana ku tusi doonaa daliilkeeda marka waxa weey meeshan waana meel sida taariikhi oo 900 oo sanadood ka hor adduunyada laga xukumi jiray waa marlabaad ka waana goob dalxiis waa goob dhaqaale waa goob deegaan oo ballaaran weeyaan waa goob u baahan in wado loo helo wadadii ay u baahnayd anagu aan soo sameynay qaybteedii hore oo 10 kiiloomitir ah sahankeedii iyo balaankeedii baan soo sameynay oo ka imika ka hor yaala ah wadadan weeyna maarta koridorka ah in garbaha ka geli doonto halka marka waxa jecelahay mustaqbalka تأتي إذا كسب بحذا إن اللام يكلك بهذا هل كان كحرته يكون جوينا وعكاء أتصلنا إن نورد حركتي وتضاسي بارت يعني نور جارسيسي هذه دولتكم نورد حركتي هرجلين تبينا أتكهل كشيت إلى أي هير مدحون أي كاء أتصلنا وشدنا وأوديار كالين تيدا إن كقيب قارته dhankiisa isagna waxa halkaasi ka hadlay barsaab ku-xigeenka gobolka Awdal aana ku simaha barsaabka Cawaale Faarax Cilmi waxuna uu yiri wadada isku xidha magaalo Qallooc iyo Laameydii weyneyd Tulli saadaradeed wasiirka oo inoo joogo xukuumadda ka wakiila yaanako arrimii gudahaaba waanu taaganahay. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Professor Umar Ali Cabdullaahi Bade oo halkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa sheegay in wadadani ka wasaaradahan ay muhiim u tahay isla markaasina uu ka hawlgali doono sidii xukuumadda Somaliland ee dadka deegaankaas oo iskaashanaya ay dhismaha wadadaasi noqon lahayd mid hirgasha. dariiqaasina insha Allah ta'ala uu noqdo dariiq muhiim ah oo isku xidha Boorame iyo deegaankan halkaana ka gargar bahalay oo koridorka ka imanaya berbere Itoobiya adduunyada kale ku sii xidhan oo noqdo meel muhiim ah. beertu waxa u baahan tahay biyo, beertu waxa u baahan tahay waxbarasho, jidkaasina wax soo saarka beeraha laga maarmaan buu yahay waana qorshaha qaranku ku shaqeynaya oo ah in la xoojiyo deegaanada wax soo saarka leh si dadkuna ay ugu nagaadaan wax soo saarkana loo gaaro heer ilaa la casriyeeyo oo mustaqbalka intan ka balaaran ama ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasiirka wasaaradda jidadka waxaan halkan si rasmi ah u dhagax dhigaynaa waa dhamaadkii oo ilaahay inaan ka rajeedino inay noo noqoto ishaaro fiican oo dhamaadkii ah halka soo bilaabmaysa meesha ku dhamaanaysa inaynu dhagax dhigno annagana ay noqoto inaanu ka hawlgalno in xukuumad ahaan iyo anagoo wasiirada gobolka laga hawlgalo sidii hawsha mashruuca ballaaran ee wanaagsaneed bilowdeen uu dhameystirmi lahaa annaga wasaaradda caafimaadka waxaan aaminsanahay wax badan noo taraya oo maanta ambalaaska Boorama jooga waxa ku imanaya 20 daqiiqo haddii loo baahdo qofka laga qaadayo deegaanka la geeyay wuxuu ku tagay 20 daqiiqo marka culayskii caafimaadka iyo kii deegaanka ka saaraa isku socodka waxba ka taraysaa intaad qabsateena waan idinku hambaleyna wixii kalena in laga hawlgalo oo la dhameystiro arintaas waan qaadanay waanu ka hawlgalinayo cidii lahaydna wasaaradda lahaydna waanu kala hadlaynaa sida aad u bilowdeen ha ka harine inaynu dhameystirnaan inaynu yidi gelino insha Allah ta'ala